aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa taageero buuxda u muujiyay dadka banaanbaxyada dhigaya dalka Iiraan ee wadooyinka isugu soo baxay si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin diyaaradii ay soo rideen militariga wadankaasi oo ay dad badani ku dhinteen. Xukuumadda madaxweyne Trump ayaa wajahaysa cadaadis kaga imanaya Koongareeska oo ka dalbanaya inay soo bandhigaan xogtii ay heleen ee keentay in la dilo taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan Generaal Qasem Soleimani si looga hortago khatarta Mareykanku ku soo socotay. iyadoo toddobaadkii hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ay meel mariyeen qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynaha ee ah in uu weeraro kale kula beegsan kara Iiraan isagoo aan Koongareeska la tashan. wariyaha VOA Michael Powman ayaa warbixinta noo diyaariyay waxaana soo jeedinaysa Sahra Ciidlanuur. kumanaankii qof ee jidadka magaalada Tehraan isugu soo baxay toddobaadkii hore iyaga oo ka xun kana qiiroonaya dilkii loo geystay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan Generaal Qasem Soleimani waxaa bedelay kumanaan kale oo banaanbaxyo ah oo lagaga soo horjeeda dowladda Iiraan. dadkan banaanbaxaya ayaa muujinaya si ay uga xun yihiin diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine ee ay dowladda Iiraan sheegtay in si aan ula kac ahayn ay militarigu gantaal ula heleen diyaaradda oo kacaysa. diyaaraddaasina waxaa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay boggiisa Twitterka ku soo qoray fariin uu u dirayo madaxda Iiraan waxaana uu qoray sidan: hadilina dadka banaanbaxaya hore ayaad kumanaan qof u disheen kuwa kalena aad xabsiyada ugu taxaabteen, isagoo intaasi ku sii daray in Mareykanka iyo dunida kaleba ay dusha ka eegayaan. la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien ayaa warbaahinta ABC u sheegay in toddobaadkan aanay maamulka Trump doonayn in Iiraan dagaal lagu qaado laakiin ay sii wadayaan sidii Iiraan isbedel uga dhici lahaa. toddobaadkani maaha mid u fiican xukuumadda Iiraan, waa taa xaqiiqadu. Mr. O'Brien waxaa kaloo uu sheegay in ay taageerayaan xuquuqda aadanaha ee dalka Iiraan iyo guud ahaan dunida. waxaanu taageeraynaa xuquuqda aadamaha. waxa ugu wanaagsan ee aanu u samayn karno dadweynaha Iiraan iyo dunida oo dhan waa inaanu xoojinno ololaha cadaadiska lagu saarayo inaanay xukuumadda Iiraan weligeed yeelan hub nucleara si loo joojiyo dhaqdhaqaaqyada argagaxa leh ee ay gobolka ku samayn karto, isla markaana la joojiyo barnaamijkooda gantaalaha blastikada. toddobaadkii hore aqalka wakiilada ee ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin ayaa u codeeyey in la xadido awoodda madaxweynaha si aanu weerar ugu qaadi karin Iiraan isagoo aan la tashan Koongareeska. gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna sidoo kale u warantay warbaahinta ABC waxaana sheegtay Congress has the power to declare war. We have to move toward peace, not escalation of war. Koongareeska ayaa leh awoodda lagu iclaamin kara dagaal. waa inaanu dhinaca nabadgelyada u soconnaa, maaha inaynu haatan buuraha colaadda fananno xilligan. weli waxaa xukuumadda madaxweyne Trump laga sugayaa inay Koongareeska la wadaagaan haddii ay jireen xogo iyo mukhaadaraad muujinaya inay Mareykanka iyo muwaadiniintiisa khatar dhinaca ammaanka ahi ku soo wajahnayd. taasina ay dhiirigelisay inuu madaxweyne Trump go'aan degdega bixiyo oo uu amar ku bixiyo in la dilo Generaal Qasem Soleimani. warbixintii Michael Powman, Sahra Ciidlanuur ayaa noo soo jeedinaysay.